والبنا هذا خلاص كسؤال هوري اللي يدين كل شيء أنا ما أنت يدين تابسينيا تاسي وأرين تاس مركي تاس في العضي أنك هو النلودي اللي هذا غير وقوين مركان إنجليز كوي يعني 1954 أنه إنجليز صوت تقرأ كوي يعني وحن نقولي إذنكو كولوني المتي إذا واحد تيمبرتك إلى لمبات هنا سلادين تينا إذا حكوتا لكن يجو كولوني البهان أمام حياتي قميس أي عاد يوم وهي هي تاسي مركي دعضي 1957 waxaan ku yaacnay raggii gabayadii baa bilaabmay iyo xornimo doonkii laakiin dadka shicibkii dowladnimo may aqoonin manay fahmaynin waxan intii fahmaysay ee ogeyd dadkii umay sheegin oo may odhan warnimayaho laynooma ogolo xorriyad conditionka United Nationskana kuma jiro koonfur baynu u tegaynaa umay sheegin 1957 bay yaaceen way tageen waana la soo hadlay way soo noqdeen Cabdullaahi Ciise SYL waa soo noqday wixiina la soo faray la idiinma sheegin 58 baan haddana mar labaad ku noqonay waxaanu doonaynay maxay ahayd in calankiina loo soo dhiibo heshiisna aanu soo gallo oo aanu wada hadallo oo heshiis ku gallo inaan calankooda qaadanayno SNL may ogeyn Central Committee SNL may ogeyn afartan inay meesha tago ina cigaal mas'uul ka yahay waxa lagu soo wada hadlaya mar kale looma sheegin SNL loo sheegay ma jirto taasi markay dhacday waxaan soo kala qaadanay ballan in maalinta dawladaha hoose ay doorashadoodu dhacdo soo noqotaan calankii leedin gudoomo UN-ta la yiraahdo wayna raacayaan maadaama ay heleen dad afkii ummadda ku hadli kara oo representative ka noqon kara amba yani parliamentarian dawladaha hoose oo dadka matali kara dadku soo doorteen taas ayuu intu qaadanaysaa April markay doorashadu dhacday May waxaan dhageysanayay ninka la yiraahdo Baashe ninka ku dhawaaqay midnimo mar kale oo taariikhda qalloociyay ayaan maqlayay si xun waliba uu qalloociyay waase loo sheegay ee taariikhda saxda maanta caawa dhageyso uu baran doona insha Allah markay sidaa u dhacday ballantii 58 aan soo galay 1958 ayay fulinayeen doorashadu markay dhacday way yaaceen xamar bay tageen waxay dhahaan waana kan calankii aan la siiyo calankii sidii baa loogu gudoobay laguna heshiiyay in maalin la wada qaato xorriyadda waana la soo siiyay Ingiriis baan ula nimay ma horteedna 58kii waan ula tagnay oo heshiisku uu soo dhacay condition kana lagu xidhay Ingiriis oo reeri waxaan u sheegnay Soomaali baan raacinaa waxaanu raacinaa ummadda Soomaaliyeed baan raacinaa raalli ahaada waayahay intaas markay dhacday maxaa dhacay waxay yiraahdeen 59 watan balansarayn ee kontriyisdeedii balanta soo kala qaadanay waana kan maanta waxa la yiraahdo qeexa qoraaladiina waynu qareynaa in la isku raacay inaan soo raacdaan go'aankiina ay idinku leedihiin oo baadama baarlamaan 3 leedihiin tiiba horta dhacday sidaasaanu calankii ku qaadanay haloo yara dadka calankii koonfureed sidaasaanu ku soo qaadanay ma garanay inta xabay ahaayeen qaar lix xabadood bay qaarna waa ka badnaayeen degmo walba waa la suray sidaasaa looga furay 59kii waayahay rag markaa midnimada u sii ololeynayeen way jireen oo wax ogaa inaan Ingiriisku aanu nasiinayn xorriyadda waxa isweydiinta la dadka aad u murma sideeba SNL oo 85 ku guuleystay waqooyi xisbiyadii ka jiray sideeba calankeedii loo tuuray yaan loo saarin sideeba ku dhacday inaad calan qaadan aad leedahay sideeba ku dhacday calankii iyo inta u sugnaa koonfur inaad qaadato was'aalaha inay isweydiisan dadka oo qofka doonaya inuu ibeeniyo ama uu doonayo runta tan buu isweydiinaya sidee ku dhacday inaydan calanba qaadan oo xornimo qaadan oo ku xirowna calankii koonfureed sidee ku dhacday 5 la kala horeysiyo waxa soo dhanbay dadku inay isweydiiyaan sababta aan tan u leeyahay taariikhdana waxay xal u tahay maanta midnimadan maanta ayay xal u tahay dhibtas haysata waqooyi iyo maanta koonfur kala haysata muranka ayay xal u tahay oo soo afjari lahayd haddii maanta ummadda Soomaaliyeed ay dhageysato xalkeedu uu dhamaan lahaa xalka Sool iyo Sanaag iyo Awdal uu dhamaan lahaa lama haysteen
calankii koonfureed sidii baan ku qaadanay heshiiskiina wuxuu soo dhacay 1919 ayuu dhacay heshiiskii waayahay markay sidaa u dhacday ay dhacday sheekadii midnimadu ay dhacday calankii taliya sunnaa UMta iyo koonfurta sunnaa ay lahayn baan horta ku xaroonay nala siiyey naloo ogolaaday maalin inaynu wada qaadano sheekada kale waan ka boodboodayaa ma dhammayn karayo taariikhdaas markii 59 ay ka imanayeen ayaa ina cigaal damcay inuu dhiil la galo inuu ra'iisul wasaare noqdo watan idinka sheekeynay ina salo la yidhaahda iyo baa fahmay waa tii ay u qoreen deegaanka uu degay ina cigaal inuu yahay 30 kilometer uu yahay taasoo waxaasoo dhan horaan idinku sheegay laakiin mar labaad baan idinku celinaya markii uu ogaaday cabdilaahi ciise deegaanku ka yimi intuu la eg yahay wuxuu yidhi waa sax horta aynu wada qaadano dabeetana waa kuwii nimankii isqabsadeen garaad cali oo sheekada fahmo ogaaday ay dhahday ina cigaalow ay kursi ku doonba tahay dadku ma oga waxa looma sheegayo joojinay waanu joojinaynaa hadday doonto 10 sano ha nagu qaadato calanka ee goortana la siinayo waayahay waxa laga cararaya markaa in rag kaloo mutacalliina meesha joogaan ay la tartamaan sheekadu waa secret waa la isdhex raacinaya waa dadka ummadii baa laga qarinaya waxay run tahay waxba loo sheegi maayo waana la dhinteeba markay taasi dhacday calankii SYL baa la saaray ee Soomaaliyeed Ingiriisna waa u sheegnay waxaan ku xiroobaynaa calanka Soomaaliyeed sidaasay horta sheekadu u dhacday markii la tegay koonfur waxa la yiraahdaa maxaa loogu heshiin waayay ee laba loogu qaybsan waayay dadku they don't know dembi baa laga galay bay yiraahdeen reer waqooyiga waa laga badsaday xaqoodii ma helin laakiin dadku ma oga waxa meesha ku jira ina cigaal waa la ganaxay markii saa u tagay wax la maxaa dhacay sababta ina cigaal shanta casho uga horeysay waxa ahayd markay nimankii ogaadeen mutacallimiinta oo la doonayay in la tuuro ayuu shan casho ka horeysay isagu u helo oo afar u kaxaysto aan tacliin lahayn ama challenge kula samaynaynin waxan inuu la cararo afar oday oo raggan oo dhanna ka tago la challenge gareynayay iyana gaaribe ka daba fuulay maalintii dambe ayuu la cararay markay isu tageen waa tii afkooyi la fadhiisiyay ee la yiri waxa aad maxaa haytay doonaysaan annagu 10 sanadood baan dawlad ahayn 8 sanadood baan dawlad ahayn maamul ahayn inteeda koonfureed ay naga dhaxaysay haddaan ugu soo beerteen bal orda afkooyi taga markii la afgaran waayay ina cigaal iyo intii kale isqabsatay ayaa inta afgooye loogu sameeyay qado ayaa la yidhi halkaa fadhiista bal waxa aad doonaysaan iyo xaqiina iyo xuquuqdiina noola kaalaya iyo cidda idinka qayb galaysa madaxnimada Soomaaliyeed way isqabsadeen gowdaas iska saareen way ku heshiin waayeen ciddii wax noqonaysay mas'uuliyadaas oo dhan ninkii ina cigaal la yiraahdo Allah ha u naxariisto iska lahaa wixii khalad halkaa ka yimi ina cigaal baa u raacaysan cid kale oo loo raacayaa ma jiro markii ay yaabeen ee ay yiraahdeen soo wada hadla oo cidda mas'uuliyad idin qaadaysa noo de keena way isku dileenba gowdaas iskaga saxmay taasaa dhacday haddaba ma ahayn arrintu laba gobol oo isku soo biiray waxay ahayd annagu dee maamul baan sii wala lahayn imikaynu wala dhisanaynaa waan mid cusub wala dhisanaynaa haddaba qoladiinii waqooyi cidda madaxnimada idinka qayb galaysa dee keena waa taata isku dileen laakiin meeshu may ahayn laba gobol oo wax qaybsanay waxay ahayd calankii Soomaaliyeed ku xorownay iyo dawlad cusub oo la wada dhisanayo oo qoladii horena waxoodii hore way baaba'ayaan dee ila gumaysiga dusha ka hayso waxay ahaayeen madax bannaanayn tababar bay ku sii jireen oo macallin baa tababarayay marka waxa la yiri mid cusub baynu wala dhisanaynaa idina Ingiriis ilaa waa anna Quraan ilowno waxaan ku qaybsanaynaa Soomaali laakiin idinku qaybtiina noo keen cid idinka qayb galaysa inta ma fahamteen dawlad cusub baynu wala dooranaynaa wax iyagii hore ka kac ee daakhiliyada idinkuna wixii Ingiriisiya ka kaca waxaanu dooranaynaa dawlad cusub baynu wada dooranaynaa waxa maqashaan waa la dhacay iyo waa caynkan 8 gobol baynu ahayn intay tiro u heleen eega idinku reer waqooyi tiro intay u heleen guriga baarlamaanka iyar oo wasiirka arrimaha dibadda iyar baa laga haystay oo hore oo waxaan filayaa wax laga dhigay wasiirka arrimaha dibadda Cabdilaahi Ciise inuu iyar noqday oo markiiba reer waqooyi looga qaaday ra'iisul wasaare ku-xigeenka wuxuun baa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayuun baa laga qaaday labadaas ahayd laakiin ina cigaal baa marka dambe la siiyey oo noqday
ودي وصلوا مع اللي مدي يسوونه وكان مركز ضمضيتان عبد الرشيد للدليل هل كان مركز شركة مريسو ترانسشيب كي ها ترانسشيب على الإنجليش شركة هورتا واتن ومدى الصومالية دي السويدين تلي السويدين يوم مدى الصومالية دو السويدين سوحوية لبادن عشير لحيا لباتك تشون اللوكل الدبال دو إيه كودة مي محاي كلا طاهي السويدينو هل علن أو كونفور سارة ولبا دادك كونفوريت بان ويدينيا هل علن أو كونفور سارة أو يو أن تكلو شيء أو أي لحيت كونفوري أسوأ ألا وكيلو قاعد حسب واحد ماتشورتيا أيها هرجي سلقاتي كنتون يسقال كيلو والوشي من نمادو واحد كنتون يسقال كيما يدعي من نمادو وهشيس كدعي مركا وقت جاه هشيس كدعي من نمادو كود اللولي اللي ليه ولا ميدوروا محيا هل قفوا هدي مدة الصومالية إيجا سوت جوابتان ميل كستو أو إيجا سوت جوابي كرسان إيجا سوت جوابه قفكي أوهيا دليل أوهيو هل علم بينو وضع قادم وقوي باتر هذا موقعتي وقوي موقعنا علن كي إنا قد حيي أيها هرقي صلى صاري مركا علن كي إنا قد حيي أنو قد حيسني يا إذا كل هايدين هرقي صلى قد تاقي يا قاتي علنها يا لها علنها بينا وضع قادنا هورتا حريدا ويحينو وضع قادنا اللي يلا باتن كي تشون أيها إنو علن maxay tay ka madax bannaan gumaysi wala qaadanay oo calankana yaa lahaan jiray oo lahaa koonfur ayaa calanka lahayd had calan aanu leenahay aan hargeysa saaray calankii koonfureed oo lagu heshiiyey 59 baanu hargeysa saaray sidaa ku timi reer waqooyi calan bay qaateen iyo xorriyad gaaro ii soo qor qof kasta oo Soomaaliyeedna diyaar baan uga ahay hal la gaarsiiyo dadka mar labaad dib ugu celiya dadka hal la gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed tiro buuxda ha noqoto dadku markay taasi dhacday su'aasha isweydiinta laan Soomaaliya idin weydiinay waxa weeye calan kaliya wada qaadanay ama inaciga la ka horeysiyo darajaha ku doonayo ama ha ka dambaysiyo calankii koonfur lahayd baynu wada qaadanay oo hargeysana ku soo biirtay goorma 26 Juun هذا على لبعض أنا وقادرنا نوكينا بل حرية أنا قادرنا نوكينا حرية دوا علنك جميسي اللي جوب الدلابة كوة حرية دوا تاسا قرصة محاكو حاجة ما قاعد لبحضي محاكو حاجة constitution كأمر شرعي محاكو حاجة ما ملكات سمستي أفر تاس أيال لقول نقطة حرنيمو وحروبي على نادلي ما قاعد لبحضي أنت نك إيسو شيء waxaan u qirayaa apologize-na waan ka bixinayaa waxaan u qirayaa in aanu xornimo gaar ah qaadanay haddii afartan la waayo oo aanu waliba ku xoroonay calankii Soomaaliyeedna xornimona maanu qaadan calanna maanu qaadan wax alaaliyo waxaanu noqonay ma jirto oo aan ahayn midnimadii Soomaaliyeed haddaba su'aasha isweydiinta waxa weeye waxa ay madaxdeenu u dabaal degto koonfurkooda luuliyo ma iiga jawaabi karaysaan calankeenniya koonfur lahayd advaanis buu helayba 5 cisho horteed baabu xornimadii qaatay calankeenni isagoo xora talyaanigu iska tegayo laakiin oo reedi calankeenni hargeysa laga tagay inaga dhaxeeyeen ku midoonay goormay haddaba midnimadu dhacday iyaduna weeye madadaan wada hadlin oo midoobin oo ku heshinin inay calan wada qaataan oo xorriyad wada qaataan ayaa calan dad kale iska saartay ba ileedihiin miyaa igu odhanaysaan koonfurimee ogeyn iyadoo heshiis dhicin oo wada hadal dhicin oo midow dhicin ayaa calankiinni la iska saaray hargeysa ويا الله إذا كان هذا سيدي أودع ذي إنه مدة الصومالية ما أنت سنو فكرت لحظة الصنادات أنا جالس عشان إذا ويديني أمة الصومالية ذي سيدي كل عذي إلا إذا هلا بعشين وكلا حروني ولو كلا الدبال دقوا ما أنت ميلوجا سرعة يلو بحكود اللي رايت يا ما أنت حرية ذي تصلت لهذا رايت لحلا تكتون وما أنت حرية ذي كود اللي ما أنت سرعة هل كان سرعة كثير تقول من سرعنا كورمان سرعنا يوم مدة الصومالية ذي مينا علم بوضع السيدن مينا علم بوضع قادم ما مركا علم كاللقاتو أيو إلا وضقاتو
ayuu heshiisku ka dambeeyaa mise heshiisku uu ka horreeyaa in calan la wada qaato su-aashaa iiga jawaaba ummadda soomaaliyeed madax iyo mijaba intaasoo keliya bay ku kooban tahay maanta taariikhdeedu uma baahna wax fara badan aan ka hadlo su-aashaan idin weydiinaya waxa weeye mar labaad idinku celinaya ma marka calan la wada qaato ayaa kabacdigeeda la heshiiyaa mise intaan calanka la wada qaadanin baa heshiisku dhacaa inaynu calan wada qaadanno inaynu midowno inaynu mar xorriyadda wada qaadanno inaynu isku mid nahay inaynu gumaysi mar ka wada xorowno calan kaga wada xorowno xorriyaddeennu isku mid tahay labada iyomaa horreeya waxay igu tiraadeen maanta waxaynu calankaa horreeyey iyo heshiiska inaynu midownaabaa heshiiyey haye kowda luuliyana haddana waa maalin kaloo iyaduna heshiisahay heshiiskii uma taariikhdeedii maanta dhibta ina haysata ee waqooyi iyo maanta koonfur ee maanta jeegaan iyo dadkaa afka taagaya ay ummadda soomaaliyeed ku laayeen ee jabhad ku samaysteen ee ummadda soomaaliyeed maanta halkaa kala geeyey ee dagaaladaa geliyey ee dhibtaa geliyey waa beentii idinkana afka la idiin geliyey iyagana lagu akhriyay nin dal loo kursi doonaya uu halkaa gaarsiiyo dhibta ina soo martay maanta 30 sannadood ina haysata iyo carruurta yaryar ee lagu yidhi carruurta yaryar ee lagu yidhi calan baa lahaydeen xorriyad baa qaadateen koonfur baynu ula tagnay waynu iska dhiibnay waxba kumaynu xidhin bal intan oo dhan ummadda soomaaliyeed iyo waxan baa carruurtan la dhaaniyey way ku dagaal galeen calan baynu qaadanay dowlad baynu ahayn 7 dowladood baa ina aqoonsaday dabeetana markii dambaynu kowda luuliyo ku biiray kowda luuliyo ayaa lagu yidhi carruurtii taasay ku dhinteen ilaa maantana haystaan waryaa khaldan ma khaldana iyagu waxaa khaldan ummadda soomaaliyeed ee dhammaanteed aan taariikhdeeda garanaynin ee halkaa gaadhsiisay dal iyo dadba dhammaantiin wixii sidaa aaminsanow waxaa ka qayb qaadateen qaranjabka soomaaliyeed iyo kala qaybinta iyo dhibta ma ina soo gaadhay baa dhammaantiin ka wada qayb qaadateen waa ku wada jirtaan sababta oo aan idiin leehayna waxay qof intan isweydiiyo oo garta baynu iska weynay soomaaliya oo dabeetana afka gacanta iska galo yidhaa wartalaaya hayaa miyaynu iska weynay soomaaliya haddaynu nahay waxaan ku soo gabagabaynayaa soomaaliya intan su'aalahan un hala iiga soo jawaabo madaxda u gudbiya federaalka u gudbiya soomaaliya oo dhan taasi waa taa waxay ku andacoonayaan baan idinku yidhi xad baanu leenahay ingiriis nagaga tegey waxay ku daamgacoodwadaan afrika xuduudii gumaysigu siduu kaga tegey xuduuduhu sameeyey marka annaku waqooyi ingiriisku xad buu nagaga tegey markaan xorriyadda ka qaadanay waxaan idiin cadday inayna xorriyad ka qaadan ee xorriyaddii koonfur ku qaadanay ingiriisna u sheegnay inaanu koonfur ku xoroobayno caalankii ingiriiskana caalankii kale ku bedelay una sii sheegnay inaanu soomaali raacnay uu noogu taag waayey marka aan xoraynayo protectiyada aad ka qayb qaadateen commonwealthka ee nimankani dowlad bay ahaayeen 8 sannadood ma ka joogtaan wuu nagula taliyey no khiyaama bay dhahay ingiriis oo khiyaama badan inaad weligaa iyadoo soomaali xoroodoba nagu gumays ku jirnaa bay dhahay rabriga bay ahaayeen runtii waan u qirayaa nimankaas waan u qirayaa inay raga ahaayeen oo ay xorriyadda ka shaqeeyeen oo ku dadaalaan siday walaalahood u raaci lahaayeen isweydiinta waxa weeye ummadda soomaaliyeed waxaan idiin ku celinayaa waxay idhahdeen xadka sida kaga tegey gumaysigu yaa la bedeleen horaan idinku sheegay sidee buu kaga tegey gumaysigu xadka ingiriis wuxuu kaga tegay annagoo calankii soomaaliyeed qaadanoo haysanaa habeenkii laga taagay calanka soomaaliya laga taagay ee dowladdii daakhiliyadda lahayd hargeysa laga taagay 26 juun ayuu xadka ingiriisku qaadnay muxuu nagaga tegey ingiriisku bilaa xad 12 habeennimo markii calankii officially la saaray heshiisku 59 buu dhacay markaasay ahayd laakiin unofficial bay ahayd markaasuu xad ku qaadnay laakiin unofficial bay ahayd balse official waxay noqotay habeenkii 26 juun 12 habeennimo ee filay in calanka la saaray meesha masaajidka maanta laga dhisay bartaasaa la saaray habeenkaa saacaddu markay dhacday calankii ingiriiska calankii soomaaliyeed ku bedelba xadkii qaadnay
xadka ay ku riyoodaan ay yidhaahdaan xad baanu lahayn oo xadka soomaaliya annaka halkana car internationally iyo ummadda soomaaliya qof kale uga qancay ingiriis wuxuu naga tegey soo shuruudda UNTS ee afrika loo dhigay taama xuduudu sidii gumaysiga tegayaan la bedelay sooma qof kale waxaad igu tiraahdaa xuduudda wuxuu kaga tegay ingiriis iyadoo xad kala leenahay hal qof oo igu dheer hala gaarsiiyo madaxda soomaaliyeed hala saxo taariikhdan madow ingiriis wuxuu naga tegey iyadoo aanu maxay ahayd toy aanu taariikhdaasi ay sidaa tahay ingiriis naga tegey taasuu naga tegey iyadoo aan xad jirin ayaanu soomaaliya raacnay shanta ayuu naga tegey talyaani annagoo 59kii ku heshiinay midnimadii 60kiina calankaygii halkan hargeysa wada saaray isku mid tahay hargeysa iyo muqdisho ayuu talyaanina iska furtay kiisii oo reeri calankii haysana xornimada oo isku wala dhannahay oo soomaali wala soconno ayuu labadii gobol wada socdaan ayuu talyaanina kiisii siitay oo aanu dhammaanteen muqdisho taagannahay talyaanina muxuu nagaga tegey inagoo calan wada sidana right ayuu naga tegey talyaani inagoo hal calan wada sidana taasaan ummadda soomaaliyeed idiin sheegaya waxa weeye xadkii ay sheegayna sidan ayuu ku baabay oo aan u jirin sharci ahaan hadday tahay UN hadday ururka Afrika tahay hadday igaa tahay hadday internationally tahay xad sidan ayaanu u jirin oo sharcina u ahayn hadday haddaba leeyihiin oo ay ku dacwoonayaan 60kii tuugaanu ku raacnay oo waxaanu jebinay sharcigu yaallay Afrika marka waxaanu saxnay 90 baanu saxnay oo dib u saxnay intii hore laakiin waxaanu kula joognay storeway waxaanu kula joognay tuugaanu kula joognay tuugo adduunyadu mayna ogeyn waanu iskala joogno tuugo sharciga adduunkaanu jebinay marka 90kii baan soo noqday hadday taa ku doodayaan laftigeeda way leeyihiin haddaanu dib u saxaynaa maadaama gumaysi nagaga tegey taa laftigeedana waa been meel ay mariyaan male irbadda bal meel igu daya aniga kaalaya nawaasin abnawaasin labadaba gumaysigu ururka Afrika iyo adduunka iyo internationally bal cid kastoo Soomaaliyeed kula dooda labada gumaysi waxay naga tagay inagoo isku mid ah registerka sharcigeena xadkeenana waxa la register gareeyay 1960 dabayaaqadeedii baa la register gareeyay in xadkeenu halkaa mara Soomaali dhammaanteenba oo aynu isku raacnay dhammaanteenba xadkeenu tirakoobkeenu intaa iyo xadkeenu kaayay badeenu taatay taasay register kala haddaad UN iyo Ingiriis haddaad ka soo heshaan iyo magacay leedahay Somaliland lahayd oo aan British protectorate ku jirin haddii documents Somaliland British protectorate magacaan ku jirin ay kaligaa qaadatay oo Somaliland la odhan jiray ninka ii soo helo welcome Somaliland haddaanay noorad la bixin oo magaca markuu Ingiriisku tagay magaca kale la bixin Somaliland Ingiriis halkuu yaqaanay Swediintu weeye xaguu Ingiriisku yaqaanay Somaliland Ingiriis xaguu Somaliland u yaqaanay wuxuu yaqaanay dhulka Soomaaliyeed oo dhan ayuu yaqaanay waxay soo qorqoraan warqad ayay qorqoraan ay leeyihiin Ingiriis Somaliland buu Somaliland tuu Ingiriis waa kee armiininka eega araga muxuu ka jeeday Somaliland markii British iyo protectorate laga jaro Talyaani laga jaro maxay noqotaa Ingiriis wuxuu jeedaa dhulkii aan Soomaali Ingiriisku Englishtu ku hadlo adigu ma bedeli kartid ma oran kartid Ingiriisku Englishtiisa wuxuu uga jeeday sidee u taalo ee loo dhigo iyo macnaheeda ugama jeedo macnahan anigu doonayo iyo sidaan anigu doonayo buu jeeday English waxa weeye dhulkii ani Soomaali dhulkii qof kastoo Soomaaliyeed qofkii dhulkii Soomaalida oo dhan isagu dhulkii Soomaaliyeed buu jeeday Soomaali iyo laankiisii dhulkiisii haddii se maanta sida carruurta nagu leedihiin no sidaan uma jeedo wuxuu u jeedaa qayb ka mid ah the north Somali south Somali taas haddii uu yidhaahdo waynu garan karnaa carkeena miduu sidaa yidhi Somali north oo qaadatay xorriyaddii
Somali South حرية قالتي Somali East حرية قالتي عليك أنا جيبوتي Somaliland بالورتري إيطاليا Somaliland English ده إيطاليا واحد لورتري Somaliland إيطالياني قال إيطاليا دي Somalia إنجليز كوحو كورتري إيطاليا Somaliland فرنش Somaliland يبريت Somaliland صدق هذا قميسيبو كعلامة سجري أردوكي Somalia ده haddaba carruurta waxaa laga dhaadhiciyey iyo dhalinyarada aan taariikhda hayninay waxaan idinka codsanayaa inaad ummadda Soomaaliyeed gaarsiisaan inaad madaxdeenna sharafta badan ee federaalka gaarsiisaan inaanay dib u dhicin kala qaybinta waxa ugu adeegaysaan marka aad kowda luuliye leedihiin israacaa dhacay waxa u adeegaysaan oo aydan fahmaynin waxa weeye laba goor baynu kala qaadanay calanka laba calan baynu kala qaadanay laba goor baynu kala xoroonay heshiisku bal caqliga bini'aadankii u dabaaldegaysaan imse sanadad bay u dabaaldegayseen kowda luuliye imse u dabaaldegayseen maalinta israaca iyo maalinta madowga inteebaa u dabaaldegayseen imse sannadood wax isweydiiyaa war calankeenii baaba la saaro waynu wada soconee siduu heshiisku calanka iyo midnimada heshiisku siduu uga dambeeyey maxaa uga jeedaan bal maxaa uga jeedaan ii sheega waxaana lagu shubay baan idinka shubaya cabdiraxmaan xasan cali taleex yes saaxiibayaan soomaaliya aynu maanta saxno ila saxa idinku waxay igula saxi kartaa inaad gaarsiisaan ummadda Soomaaliyeed la doodana dood u furtaan inaanay sanadka soo socda dhicin kowda luuliya wax la yidhaahdaa laba cishaa la idinku qaybinaya waxaad ku qancisaan ummadda weydiisaan war dad calan wada qaatay oo wada hadlay oo maxay ka wada hadlay inaanu calankiina qaadanno inaynu calan wada qaadanno inaynu xornimo wada qaadanno ingiriis u gudbiyey talyaani u gudbiyey UN-ta u gudbiyey adduunkaba u sheegay annaga UN naloo soo diray oo aanu nidhi Soomaali baan ku xoroobaynaa ma doonayna annagu xorriyad Soomaali baanu raacnay calankeedaanu qaadanayna annagu ma doonayno calan gaara annagu ma doonayno xornimo gaara annagu waxba ma doonayno annagu waxaanu doonayno walaalahayaan soo wada hadlay la saddex goor baanu ku noqonnay xamar waxaanu isku raacnay isku afgaranay oo ku heshiinay inaynu maalin calanka wada qaadano calankaana ku xiroono biyana waxaas heshiisayn maxaa la yidhaha waxaad war maxaa la yidhahdaa balse waxaad iiga warantaan maalinta israaca baad tidhaahdeen inagoo calan wada sidana waxaad iiga warantaa halka lagaga wada hadlay maalinta markaa calan baa baynu wada sinay cari ii sheega meesha inta la wada fadhiistay lagu wada hadlay ee lagu garamay ee maxaanu qaadanaynaa iyo maxaana siinaysaan iyo maxaynu ku heshiinaa iyo maxaynu isku raacnaa sidee ku dhacday nin calankaagiiba sitay oo aad wada xorowdeen sidee bay ku dhacday haddana ina la dhiskaaso oo dabeedna dib laga heshiiyo oo dabeetana maalin la yidhahdo maalintaasaynu israacayna ummadday anigu way wareeriseen Soomaaliya aniga confused bay igu rideen waayo quruuntaadii oo 9% ay waxaan aaminsan tahay 1% ama 2% way adagta way ku dhib badan tahay sidoo quruun dhan waxaan uga saaray 60 sanadood ugu akhriyay 60 sanadood baa taaleedu ku akhriyay balse inay hadday maanta isgaarsiisaan ummaddu waxbay qaar badan baa fahmay qaar badan baa durba kumanaan in dhageystay baa fahmay intaa waxaan kaga gudbayaa dadka Soomaaliyeed oo markaasun ii weydiiyay qof kasta madaxdiina cid kastoo ku doodaysa ii weydiiyeen war halka la fadhiistay 26 ilaa 1 inta u dhaxaysay ee lagu wada hadlay ee heshiis lagu kala qortay ee wada hadalba dhacay ee wax heshiisaba iyo wada hadalba ay dhex mareen ilaa marka wada hadlo ayaa midowga laga wada hadlaa markaas la yiraahdaa loo heshiiya aynu kowda midowno balse 59 baan anigu idin leeyahay bal labada tasaxsan ii keeno anigu 59 baan la heshiiyo lagu heshiinay wada xorooraba oo cala wada qaadanay waxana aan leeyahay kowda luuliyo qof kale oo meesoo qori karaysa kowda luuliyo macnaheedu midnimada kowda labada gobol waa maxaa uga jeedaan ma garan karayo laakiin ilaahay waxaan ka rajeynayaa inaan loo shaqaynin
fitnada iyo kala furfurka iyo carruurtaa waqooyi maanta ee sidaa lagu xidhay calan baa lahaydeen ku dagaal galay asanam calankiinnii xorriyadiinnii adduunka 7 dowladood baa idin aqoonsaday ee wax koonfura iyo soomaaliyeed oo ka qabta ummadda may dhinteen been kumay dhinteen haddii la war soomaaliyn xoraysay iyo calankeedu wax abaal inagu leh koonfur SYL ba abaal inagu leh koonfur baa calankayna siiso inagu xoraysay haddii sidee buu go'aya bal ii sheega xornimo ma maal qaadan iyo calan leedahay waxaanaad ka go'aysaa waa maxay waxaan la soo noqonnay ba kuleeyahay xornimadii war koonfur baan xorayso calankoodii lagu xoraysay waxaanaan la soo noqonaynay leenay waan la soo noqonnay oo xornimadayadii baan la soo noqonnay waa tee xornimadayadu calanka soomaaliyeed baan ku xoroonay ingiriis ku bedelay dee calankii inaanu haddana soo qaadanay ma ahayn kabaan ku xoroonayey kabaan xoreeye ya salaam soomaaliya ya salaam carruurtayadii iyo dadkaygii saasaa laga dhigay been baa la dhaamiyey aakhirana been baa la dhaamiyey oo dunuub iyo dembi loogu sameeyey ifkana weli tiibay haystaan igala furfura oo gaadhsiiya dadkan waqooyi igala furfura bilaa calay ummadda soomaaliyeed I'm begging you waan idinka baryayaa inaad ummaddan beentan waa lagu cadaabayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi ummadda beenta isu sheegtaa ma aha ummadayda war ummadda nebi maxamed ha lagu soo celiya been baa loo xidhay waa beentii ugu weyneyd ee bili'aada sheego oo ku millions ay sidan haysato aan ka xorayna beenta ajar baa inoogu jiraa may dhinteen kuwii hore u dhintay SNM iyo calan baynu qaadanaa iyo dowlad baynu ahayn ma noqoteen sidan waxay u mahadnaqi lahayn dadka koonfureed ee cadaawadda loo geliyey ay calankooda aynu ku xorownay ee ay inagula dagaal galeen ee inagula maxaayatay halgan galeen in calankooda aynu ku xorowno markii ingiriis noo diiday way u abaalgudi lahaayeen may caadeen may yidhaahdeen waanu go'aynaa sababtoo ah calankii xoreeyey maxay ku go'ay calanba may lahayn markaad calan qaadato xornimo gaara qaadato ee sharci qaadato ayaa la wada hadlaa la isu yimaado maasale ma midoona imika okay calankeebeen labada qaadana ka heshinaa kan baa qurux badan ka koonfur inaga tuura haddaba kana qaadateen qolada inaga tuura ama aynu isku darsan labada calan sida Tanganyika iyo markay isku biirayeen Tanzania loo bixiyey maxay ahayd Tanganyika iyo maxay ahayd ii soo qabta ilaa weeye markay labada isku biirayeen calankii way ku heshiiyeen magaciina way ku heshiiyeen bal adeeg calankiina way ku heshiiyeen magaciina waxay dhahan midba in aynu jarro isku dhex darro maxay ahayd Tanganyika iyo maxay ahayd ii soo qabta sida ma lagu heshiiyaa calan markaanu qaadano idina calan qaadateen ayaa waxa la yidhaha waryaadheen laba calan baynu kala haysanaa sidii Yemen oo kale aynu ka wada hadallo heshiis aynu ka wada hadallo dee labada calankee baynu qaadana aan isku dhex darro bal ii sheega meesha calan la isku dhex daray meesha lagu wada hadlay ya salaam ummadda soomaaliyeed ila tabliiqiya dadkan ku soo celiya diinta ku soo celiya ummatul maxamed alayhi salaatu wasalaam ummadii nebiga waa laga saaro rag tuuga baa ka saaray ummadii waqooyi ee muslimkaadi ajar baad ka helaysaa Soomaaliyeed haddaad beenta ka furfurtaan oo aad runta aad ku soo celisaan anigana aad ila igula soo celisaan runta anna ajar baan ka helay idinkuna ajar baa ka helaysaan waxaan idin tusayaa dhalinyarada waqooyi dhammaanteed ba isku dhan oo mahadnaqaya koonfur oo gartay runta oo gartay walaalnimada sidan bay walaalnimada ku soo celin lahayd sidan baa jacaylka Soomaaliyeed ku soo noqon lahaa sida aan u garanayaa bay u garan lahayd sidaasaa Soomaali isugu mid noqon lahayd sidaasay abaal Soomaali meel walba u hayn lahayd sidaas ayaa cuqdadan iyo xanuunkani ka bi'i lahaa loogu sheekeeyey dowladdeeni 7 dowladood baa ina aqoonsaday oo 7 tallaay wada jiray oday cabdillaahi wuxuu jiray tallaay oo talbeeli gaaray in yar baan ku sigtay talbeeli gaaro waxaan idinkula talinayaa Soomaaliya waan ila qabta dadkan ilaa baan ku dhaariya dadkan halayla qabto ajar baynu ka helaynaa ajar aan yarayn baynu ka helaynaa dadkan Soomaaliya madaxdana gaarsiiya kow luul iyo wax la yiraahdo dambe ma jirto waxa doontaana kala u bixiya
ma jirto koodu 26 ayaynu calan wada qaadanay oo haddii maalin la leeyahay maalinta heshiiska may 59 ha la soo qaato dee maalintaasuu heshiiska madowgu dhacay wadahadalku maalintaasuu dhacay oo lagu heshiiyey in cala la wada qaato in maalin la wada xoroobo in maxaatay la israaco calankii baa naloo soo dhiibay kondishinkii baanu fulinay maalin baynu wada xorownay waxa maqashaan maalinta soomaali calan wada qaadatay 26 juun yaab iyo mucjiso iyo maalinta israaca kooda maalinta israaca war ina cigaaliyo miyaan calankaba hoos taagnino calankeenii sida ninba aad baan idin salaamay ummadda soomaaliyeed dadka reer waqooyina waxaan leeyahay aniga maaha ka xaq iyo xuquuqa leediin iyo taariikha leediin idiin diidan aniga maaha xus bilaamay halgan baa bilaamay balse been baa laydinka sheegay wax allaaliya halgankeennii hal bacaad lagu lisay yaa ka dhigay